بسم الله الرحمن الرحيم marka hore waxaan salaamayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan salaan kadib waxaan halkan ku faahfaahin doonaa aniga iyo wasiirka gaashaandhiguba dacdadii xalay ilaa maanta ka dhacday dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inuu xaqiijiyo inuu dalka ka dhacay xalay ilaa saakay isku day afgembi balse dhicisoobay afgembigaas waxaa soo abaabulay oo hormuud ka ahaa madaxweynihii muddaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu ku weeraray ciidamo asiga ilaalo gaar u ah oo asiga si gaar ah uga amar qaatay ra'iisul wasaarihii xafiiskii iyo qayb kamida ama qaar kamida xafiisyada golaha wasiirada nasiib wanaag kadib markii ay ka hor yimaadeen afgembigaas qaar ka mid ah ilaalada madaxtooyada iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo qaybo kale oo ka mid ah ciidamada qaranka waa uu dhicisoobay intii lagu soo qanciyay in badan oo ka midana dib ayay kaga laabteen afgembigii ay ku howlanaayeen waxaa jira tiro aad u yar oo weli ku howlan arrimaha guraacan oo dhicisoobay oo garan la inuu waagu ku baryay oo ka mid ah ciidamadii uu soo abaabulay madaxweynihii muddaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan ugu baaqayaa ciidamada amniga inay difaacaan dowladnimada inay difaacaan dimuqraadiyadda ilaaliyaan hantida shacabka iyo badqabkooda waxaan shacabka Soomaaliyeed u xaqiijinaa in tallaabo sharci ah laga qaadi doono shakhsiyaadkii ka dambeeyay afgembigaas dhicisoobay hadday noqon lahaayeen xubno ka mid ah ciidamada iyo hadday noqon lahaayeen shakhsiyaad siyaasiyiin ah oo aad loogu yaqaano falalka guraacan ee noocaas oo kale ah weli waa uu socdaa howlgalladii ama ciidamada operationkii ay ciidamada amnigu ku difaacayeen dowladnimada iyo dimuqraadiyadda وانا سعدونا وانا قوليسدونا هدي الله إدمه وما سنتين بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد الحمد لله رب العالمين guud ahaan waxaan halkan ka salaamayaa shacabka Soomaaliyeed meel walba ay caalamka ka joogaan sida aad la socotiin una faahfaahiyay wasiirka amniga dalkan waxa ka dhacay xalay ilaa yasaaka afgembi dhicisoobay afgembigaas sida aad la socotiin waxaa geystay oo ka shaqeeyay madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhibaatada inta la eg sababaha loo marayo waa dareemi kartaan waa sababaha doorashada oo uu ra'iisul wasaaruhu faahfaahiyay madax kalena ay faahfaahayso ciidamadeena qalabka sida guud ahaan iyo gaar ahaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa in aysan ka qayb qaadanin qaybna ka noqonin falalka noocaan oo kala intii ku kadsoontay saaka oo isku dayday inay la wareegto xafiiska ra'iisul wasaaraha oo dalkan mugdi ay geliso oo ka soo laabatay shacabka Soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidamadu iyo dawladaba ilgaar ayay ku eegi doontaa inta istiil ku harsan oo ka shaqeynayso wali falalka noocaas oo kala ah waxa laga qaadi doonaa tallaabo waxaan ugu baaqaynaa inaysan ku kadsoomin mar kale ka amar qaadashada iyo fulinta awaamirta madaxda danta gaarka ah kale ee arrimaha doorashada waxaan rabnaa dalkan meel mugdi ah mar labaad inaanan loo celin waxaan rabnaa in ciidamadu maaragta waxa lagu dhisay laguna qalabeeyay hantida shacabka Soomaaliyeed suuragal ma in iyagu lagu dhibaateeyo mar kale oo hantidoodii lagu dhibaateeyo dib loogu geysto sida la socotiin ciidamadaas taliyahoodii amarka ma bixin amarka wuxuu uga yimid maaragta shakhsi dana gaar ah ku wato sida daraadeed waxaan rabnaa inaanan mar labaad aanan lagu dhibaateynin shacabka Soomaaliyeed duruufaha noocaan oo kala waxaan amraynaa dhammaan ciidamada qalabka sida
meel walba oo ay joogaan inay u adeegaan shacabka inay ka qayb qaataan howlaha lagu baacsanayo dadka faldambiyada xalay iyo saaka dhacay geesti inay operationkaasi ay ka qayb qaataan annagana waxaan ka ballan qaadaynaa shacabka hortiisa inaanan marna yeeli doonin nafteenana u huri doono in dalkaan mar labaad meeshii laga keenay dib loogu celiyo salaamu ullahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatu